runta biyo kama dhacaanki waxa weeye in ujeedada ugu sareysa ee Ilaahay bini'aadanka u abuuray inay tahay inay caabudaan isaga. ereyga Ilaahay waxa ku qoran haddaba haddaad wax cuntaan ama aad cabtaan ama wax kasto aad samaysaan dhammaan u wada sameeya Ilaahay amaantiisa. walaalayaal marka waxa inaga leeynoo abuuray Ilaahay inaynu caabudno caabudaadaasoo midaynu inagu u baahannahay. eeg muhiimaddu waa taa inaad ogaatid caabudaada Ilaahay adaa u baahan, Ilaahay uma baahna, Ilaahay waxba ku soo kordhima doonto. maxaynu ku caabudaynaa? ereyga Ilaahay halkan waxa ku qoran inaynu afka ka caabudno kaliya ma aha, laakiinse waxa ku qoran inaynu ficiladeena ku caabudno. waxaad cuntaan ama aad cabtaan ama wax kasto aad samaysaan dhammaan u wada sameeya Ilaah amaantiisa. marka wax allaale waxaynu samayno oo dhan waa inaynu Ilaahay ku caabudno. shaqadeenu caabudaada Ilaahay mid bay ayay ka noqon kartaa, ereyadeenu caabudaada Ilaahay mid bay ka noqon karaan. sida aynu u noolahay caabudaada Ilaahay ayay tahay, ma aha caabudaadu kaliya masjid ama kaniisada tago inta 5 daqiiqo Allahu Akbar la yiraahdo la farxasho la soo noqdo halkii laga bilaabo, ma aha. laakiin waxa weeye nolosheena oo dhan caabudaada Ilaahay waa inay tahay mid ku sameynaysa waxa weeye ka buuxda waa inay noqoto.